waxaan idin leeyahay wixii aniga muuqaaladayda iyo barnaamijyadayda dhammaan waxaad kala socon doontaan Haga Media subscribe dheh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهاجا ميديا iyo markale waayahay markii odaygu geeriyooday isagii oo tacsidii loo fadhiyo oo maamadii ay u saaran tahay asaydii ayaa gabadhii ay ku curatay waxay tiri hooyo imaad dhalin bal hadda sheekada dhageysaya hooyo imaad dhalin waayahay oo shanta wiil meena kula dhalanin bay tiri waxay tiri ilama dhalan gabadhii way dhaqaaqday way iska tagtay shanta wiil la dhalatay gabadha mid waxa la yiraahdaa Jubba midna waxa la yiraahdaa ba iyo bakooli baa la yiraahdaa midka kale waxa la yiraahdaa Hirshabeeli midka kale waxa la yiraahdaa Cadaada Mareeb ka kalena waxa la yiraahdaa Buntu Darwiish shanta wiil ayaa gabadha la dhalatay gabadhii markay muddo maqnay ayay soo noqotay ilaag hadda in yar waxaan dhexgelinayaa gabadhii horta laga waayay reerkiina la joog waxay la timaada ma taqaana aakhirka waxay timaadaa iyadoo xaamil ah oo ilmo la garan waayay ay caloosha ku siido waayahay markii muddo la joogay ayay soo noqotay gabadhu waa Hargeysa waxay ku soo noqotay hooyadeed maama Muqdisho markii albaabka u garaacday ayay tiri waa tuma waxay tiri hooyo waa Hargeysa ha hooyo waa maxay xaamila tahay ilmahan yaa iskale waxay tiri hooyo ma aqaan ilmahan cid iskale wariyaa lihi alla yahay oo muslima markaas la yaabay shantii wiil ee maama Muqdisho dhashay ayay wargelisay shantii wiil baa isu yimid waxa la yiri gabadha la yiraahdo Hargeysa anugan yaa iskale waxay tiri anu garan maayo oo waayo seen garan marna waxaan anigu joogay meesha la yiraahdo ii sheega Nairobi waayaan u hoyday Addis Ababa in badan baan joogay Dubai in badan baan joogay sidee bad berbera shacabka Soomaaliyeed idinku kala tashanaydo iibisaan oo kala adigu boosaasamad kala tashatay may kala tashan marka seediga falaysa inaan kala tashado waxayga meesha liya South Africa waan joogay Ingiriiskana waana murbadnaa wallahi aniga meel laga raaci garan maayo waayahay shantii wiil baa shiray marka waxa lagu shiray Hargeysa waa xaamilo bal waxay dhashay ma sugaynaa hadduu ilmuhu cadaan noqdo yaa bal hadda eeg ilmuhu hadduu cadaan noqdo waa Ingiriiska iyo Dubai labada ayaa u qoolan hadduu madow noqdana South Africa iyo Nairobi iyo meesha la yiraahdo Addis Ababa oo weligeed dadkana naga dhaxaysay wariyaa lihi alla yahay halkaas arrintu maraysa waayahay haddaba waxay isugu soo biyo shubatay Hargeysa ay dhabtii waa dhaliilan tahay dhabarkii arxaha waad ka dhuucsan tahay calooshuna dhulka u dhawaatay oo shinkaagii dhammaa Soomaalina dhammaan way ku dhawraysaa waa laga dhursuy dheeraad dunduma dhowr fiiqana kulkay dheelidana fudkii dhaladayeen bal fiifaha intuu sii kala dhacdhaco isagoo dhambalan sawka dhulkii inta uu ku dhacay ciidii dhex galay way dhardhaaran tahay ma dhaqaaqdo oo jiriduna ka dheer nafsigana ka dhowr wixii laga dhursugaa iska soo dhawaa qolada xamar joogta xoog ku qabsan Soomaaliland oo way ka adkaadeen oo waa meel ku qabsan والله أنا أبو تكرسته أن أبغى ملايا الله لا ده Hargeysa ay dhabtii waa dhimantaho waad isdhaafsantahay madaxana dhardhaar ya kaaga dhacay warkaale waa deeylaaday wariye shaqaadka dhigtay Soomaa wallahi hadii lagu qabto dad shahiidi weydid waad googoy degdeg baa lagu jarjari halkaas aad ku baqtiyaa baa dhaqa waxay Soomaaliland aad Hargeysa ay dhabahan ad ku dhababaclayn xagee buu dhacaa u ku dheelmadaa waxa jirtay waa ay Hargeysa tiri walaalada iyo Itoobiya cadawga iyaga Soomaaliya horta ku ceeli hadalka waa ay Hargeysa tiri walaalada iyo Itoobiya cadawga iyaga Soomaaliya anigu waxa leeyahay waxa aad sheegaysaa ma aha wax warbaahinta iyo ummadda midna tan oo adigana danku waxa dalku waxa jiray sababtoo anagana danno bal hadalka u fiirsada Soomaaliya dee adan markuu aamino adigii khiyaamo imikana Itoobiyaan kana aaminsanay wali iyagu inay waaya Hargeysa ay dhabtii waa aan dhaweyn hadalka dhaca la dhageystayo Soomaalidu dhammaan dhakafaartayo meel baa la dhigay ee taariikhda dhugo nafsigana baldhaw dhimanay maanta waxaan ka fakariyay qaadkii wata la waayay waa ka caddaanay waxaan oqoday intaas inaad laanta laakiin haddaad saan tahay aadaan uga xun Hargeysa ay dhabtii waan kula dhasho waan ku dhawrayaa waan kugu dhawahay Hargeysa ay dhabtii dhaanaan maqnayn miyaad dhawraysaa waad dhiman tahay ruuxii dhagala miyuu dhoohan yahay Hargeysa ay dhabtii dhibaatiyo colaad aan dhammaanin baan dhiraan dhirinayo dhafoorkaygu yaal waad ka dharigsantahay
sida aan Jabuuti iyo Itoobiya nahay aanu noqono ayaan anagu jeclayn maanta aanu jeclay haddaad diideen ku yar iyo ku weyn isku raacsantiin inaan waxba ahayn haddaa naga xishoo weydeen waa naga baqi doonta kolkay qaar dhintaan ama dhaawacmaan kama dhiidhidide waa adigii dhabtii dhaantayn jiray oo lacagta muqdisho laga soo qaado maxaa berbere lagala doonay ma ciidamada muqdisho ilaalinaya la siiyo ha isdhagatirine taariikhda dhugo nafsigana baldhow wixii laga dhursugaa iska soo dhowaa anagu British baan la soco aabay dhaafacul waxa ka cabsoo si garan mayna anaga ma naqaan leeyo GP baan anaga laga wada soco aabay dhaafacul anaga wax sibtaal oo dal marmal waxaan dhaga ala qambal gudi la ala war dhaqaajniyo subscribe dheh haga media ila liqaa